bahda saxaafadda Jubbaland ayaa kulan duco iyo baroor diiq ah u sameeyay wariyaashii ku geeriyooday weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen Hotel Madiina X cascasi ee magaalada Kismaayo maalinta Jimcaha ee la soo dhaafay gelinkii dambe. Weerarkaasi ayaa waxaa ku geeriyooday Allah u naxariiste wariye Maxamed Sahal Gacma Dheere kan wariye Hodan Axmed Siciid Hodan Naaleeye. kulankan baroor diiqda ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee Jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere. qaar ka mid ah bahda saxaafadda Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ururada rayidka qaybahooda kala duwan dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo mas'uuliyiintii kulanka ka soo qayb galay ayaa ka taxsiiyay geeridii ku timi guud ahaan dadkii ku dhintay weerarkaasi gaar ahaan labadaasi saxafi iyo sidii looga warqabi lahaa caruurtii ay ka tageen. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadal kooban ka jeediyay saxafiyiintii ka soo qayb gashay kulanka baroor diiqda ah. ilaahay u naxariisto 26 qofba gaar ahaan intaan meesha isugu timid ay isku mihnada ahaayeen Maxamed Sahal Cumar iyo Hodan Naaleeye labadaba ilaahay naxariis gaar ah siiyo hana u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ay ka tageenna inaguba aynu ku jirnana ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo in muddo ka soo shaqeynayay idaacadda dawladda haddana uu la shaqeynaya TV madaxa banaan waxaan marnaba la xusin oo hadda intuu dhintay aan dadka ka maqlin inuu ahaa isku duwaha wasaaradda ee gobolka Jubbada Hoose oo iyadana wali uu shaqadii ku dhex jiray dawladda. labahan habeenkii dhacdaas ay dhacday aad baan ugu murugoonay aniga qaasatan ma aamin waayo ilaa ugu dambeyn aan ku ogaanay inuu geeriyooday subaxii waxa ayna faran dhamaanteena u ducayno walaaladeen aynu niraahno ilaahay meelsan ha ina geeyo si guudna waxa idin ka codsanaya dhamaanteen inaan cafino. habeenkii tacsiis la isoo sheegay runtii ma aaminin ilaa markii dambe aan telefoon kula hadlo qof dul istaagay oo ugu horeeyeen Cumar Yaasiin iyo Axmed Maxamuud Jaamac ee xaqiijiyeen ay dhaheen Gacma Dheere annaga saaka halkan ka qaadnay aadan waa u geeriyooday Allah u naxariisto ninka. sidoo kale waxaa hadal kooban munaasabada ka jeediyay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka dowladda Jubbaland Mudane Aw Yuusuf. sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere isaga oo u tacsiyay dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii dhimatayna Allah u naxariisto intay ka tageen waxaan leenahay sabir iyo iimaan dhamaanteed Ilaahay naga wada siiyo inta dhaawacantayna insha Allah taala annaga naf iyo maal waxaan ku bixinaynaa insha Allah taala agoontina intaan garab qaban karno garab qabanno dhaawac annagana insha Allah taala ciidii meesha waxa ka soo gaartay ka dowlad goboleedka Jubbaland sida go'aanka uu yahay wax kasta wixii loo qabanayo in loo qabto. awalan waxaan kala soo qayb galnay munaasabadan aad qaban qaabiseen ee baroor diiqa ee tacsida ee u dhigteen xubnihii ka tirsanaa baxda saxaafadda ee ku geeriyooday weerarkii arxandarrada ah oo sharwadayaasha soo qaadeen. waxaan leeyahay samir iyo iimaan guud ahaan Allah inaga siiyo adeegana gaar ahaan baxda saxaafadda samir iyo iimaan Allah idinka siiyo dhammaan intii ku geeriyoodana waxaan leeyahay ilaahay jannada ka waraabiyo inta dhaawacana Allah u booga dhayo.